Bismillaahi Raxmaani Raxiim dhegeystayaal soo dhawaada iyo daawadayaal ninkii la hadlaayo waa bidhaamiye been mashaage baarqa banaankiisa degay baraha bulshada baryahan waxaa kusoo badanayay dumar Soomaaliyeed oo isqaawiyay oo waxay rabaan ay sameynayaan oo san waxba u dhoornayn marka waxaan rabnaa inaan arrintaas ka hadalno horta maxaa keenay inay noocaasi soo bataan inay sidaa dhacdo maxaa keenay waxaan rabaa inaan idiin sheego 3 arrimood ayaa sabab u ah in arrinkaasi dhacdo 3 arrimood waa saboolnimo caannimo raadis iyo furiinka oo batay marka 3daas waa kala qaadaynaa sababaha mid kastaba ay sabab ugu yeelan karto in gabdhuhu isqaawiyaan mid afraad ayaa hataa sii raaci karo mid afraadna waxay tahay shukaansiga Soomaaliyeed oo dhagool noqday dhagaha xirtay macnaha dhagool oo waxba ma maqlo bis wax loo arkaa maahan shukaansiga hadda joogo waa itus itaabsi bis maahan mataqaanaa maahan isha kii la yaqaan maahan markaan afartaas kala qaadno mid aan dul istaagno mid koowaad furiinkiya batay oo sababtoo ah si orod ayaa la isku guursadaa orod ayaa lagu kala tagaa gabadhii ayadoo 20 gaarin ayaa wiil guursaday wiilkii been wuxuu ugu sheegay markii uu shukaansanayay inuu hanti leeyahay inuu xadka keenayo inuu xamar guryo uga dhisayo markay isguursadeen arrinkii waxay noqotay been iyo wixii jidadka lala taagnaa gabadhii way kala tageen Soomaa markii kala tageen gabadhii gabarnimadeedii weysay garoob ayay noqotay waxay iska dheeraxsiinaysaa nolosheedii inay dhamaatay waxay isku sheegtay inay garoob tahay tayadii shalayna aysan lahayn sidaa markay intaas isku sheegto yaa niyadeedii way dintay oo niyadii ayay ka dhimatay mustaqbalkeedii mugdi ayuu noqday waxa durbadiiba ka halaabaya doorasho labaad inay sameyso way ka halawday kadib marka maxay sameynaysaa si ilaa garoob way Soomaa garoob markii la dhaana niman badan oo qaarkood xabad nool iyo daba nool iyo waxaas jeclay waxay isleeyihiin tan garoob waa burburtay sax si heblaayadaas ay u tustaan inaysan nooshahay waxay bilaabaysaa inay xubnaheedii meel kasto isleedahay way nooshahay inay soo bandhigto ay baraha bulshada soo dhigto si loogu soo yaaco loo yiraahdo qoftan way is haysataa sababtoo ah waa niyad jirto laakiin shukaansi habdhagooleed oo waxay bilaabaysaa itusa way soo bandhigaysaa jirkeedii qaybtaas leedahay way nooshahay ayay soo bandhigaysaa sidaa ayayna mataqaanaa baraha bulshada u dhex wareegaysaa waxaa soo hartay qaar ka mid a gabdhihii Soomaaliyeed yaryarka iyagana oo qaarkood aananba guursaninba waxay arkayaan heblaayo jirkeeda soo bandhigtay heblaayo ama dabadeeda soo bandhigtay heblaayas daawatay way is arkaysaa waxay isleedahay adigana intee ka noosha heblaayas meesha ka noosha way soo bandhigtay lugay ka nooshaaba heblaayadan lugihii soo bandhigay iyadana marka heblaayadan ma ogo wartan waqtiga iyo waayaha ayaa ka hiiliyey sidaa ayay isku qaawisay adigu maxaa isku qaawisay ma ogo heblaaya is qaawisay sidaa ayay isku qaawisay iyadan Soomaa saas ayadana godka taas ugu jirta waxaa soo hartay saboolnimo waxaa jirto in familada Soomaaliyeed qaarkood aysan dhaqaalo ku filan in gabdhahooda ay waxay rabaan ugu sameeyaan inaysan heli karin in gabdhihii inay hadda bilaabeen iscadeen iyo hamigii hore ka weynaa hamigii hore gabdhihii wuxuu ahay 2,000 oo haruuda inay marsato iyo ilaan 4,000 la gado laakiin hadda wixii uu ka tagtay kareen iyo balaayo dhan la rabaa sax wixii hooyo ma hayso aaban intii muu gadi karo Soomaa oday hebel intii gaday Soomaa oday hebelkii intaas galay marka ninka lacagta ku siinay eedo waa inaad u sameysaa wuxuu uu rabo Soomaa ninka lacagta iyada siinay baraha bulshada ka soo helaa YouTube oo ka soo helaa ama meel kale ama Instagram oo ka soo helaa Soomaa waa in iyada oo qaawan oo xagga geeyaa si xagga lacag uga soo arurto lacagtaasna iyada wax uga siiyo iyadoo marka mustaqbalkeedii taas maxay ku bedelatay beesay ku bedelatay sax oo ay kareen ku gadato sidaas ayay tan isku qaawisay qaawnaanteedina sidaas ay ku arkeen mar la arkay anigoo kala arkay marka waa inaan ka naxaa waa inaan u sheegaa abaa inay qaldan tahay may keep going alle halkaas ka sii wac bismillah meel ogahana waa ka shidan tahay laaya usaara heblaayadii halkii video markay ku hesho views badan markay fariimo badan ka soo gaarto haddii shalay xabad ka qaawisay biri dabaday ku dareen biri qoortay ku dareen biri lugtay ku dareen ilaa sida hooyadeed ku dhashay intay noqotay ay soo dhigto
yaa intaas gaarsiiyey saboolnimo lagu daray dadkeena wax magaratada ay yidhaahdeen sii soco keep going khatar ayaa tahay sidaa ayay taas qadka ay uga baxeen labadaas soo ma midda ugu dambeysa soo hartay saboolnimo iyo froog waa soo caanimaa soo hartay caanima dadkii beryahan waxaa aad lagu yaacay baale tiktok dhahayaan tiktok marka waa video yar muuqaal yar oo layska soo duubo oo adiga sikimaa qofba waxay qofka kale ku challenge karaynaysaa inay ka mataqaanaa badato love badato laigaas ay ka badato marka heblaayo marka iyadoo jilbaab wadata ay soo gasho no like wax ma helayso absolute waxba ma helayso waxaad arkaysaa marka heblaayo gabsaarka iyadoo wadato oo gabsaarkeeda wadataya ay dhinac ka tuureen maxay jaaniskas maxay tahay oday hebel inuu qoorta iyo luuqaan arko luuqaan markuu arkeen oo yaay khatara tahay dhiiq oo laag ku siinaa abu asoo ogeyn xataa oo rabin oo dhiiq ku siinaa burburka asoo fiirinayo dhabiiq oo ku siinaa marka heblaayadaas markay inta ka hesho ay qoorta keliya ay ka heshay 2,000 oo like markay ka heshay waxay isleedahay heli qadaa intaan qoorta xabadka wada feed bal adiga xabadkay wada feede dhinacay biri ka feede dhinac markay ka feedo ama dirac waxay soo qaadanaysaa meelahaas ka gogo-aan oo kale oo gees laga arkaa kiya 5,000 ku heli haddana hadda inay wada dayso maxaa ku diidaya markasay 10,000 u hesho ilaa adiga like saaray adaa caan ka dhiga sooma sax wayba dhacdaba wayba faydataba waaba laagii wixii aad sii kartin waaba siisaba hadhowdii waxaa lagu leeyahay waaba caanba qofkaasba waaba quruxley waaba heblaayadii waxaad arkaysaa gabdho qaarkood ooba profilkeeda saaranayaba quruxda iyo mataqaana caannimada ay leedahay awgeed u saaranaya heblaaya marka cajiin leeya iyo heblaaya marka jilbaab iska wadatay oo la aqoonin oo cidna aqoonin si caan u noqoto jilbaab huurkiis maxay ku wadane iyo sheeg adaan ku weydiiyey maxaa culayskiisa u geliyey maxaa u geliyey waxba uma gelin waa inay siibataa ee dhigataa si heblaayo caanka u noqotay si isaga bareejeyso marka aniga waxaan aaminsanahay afartaas inay siyaabood inay mataqaanaa ay sabab u tahay in gabdhaheenii Soomaaliyeed ay dhar ka dhigtaan waxaana arinka ugu weyn ee aanan la dhayalsan karin ay tahay in raggeena Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin in gabdhaheena Soomaaliyeed ay isqaawiyaan waayo stresskaas iyo walwalkaas ay qaarkood dareemayaan annaga ayaa ku abuurnay mid kale idin laabto gabar yahay Soomaaliyeed anigu waxaan ku waaninayaa waan jeclahay in aad wanaagsanaato wanaaggaaguna waa wanaaggeega waayo waxaan ahay aabba Soomaaliyeed waxaan ahay wiil Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed ay dhashay gabar Soomaaliyeed ayaa ila dhalatay gabar Soomaaliyeedna waan qabaa sharaftaadu waa sharafteeda abbaay waxaan kaa codsanayaa haniya jibin noloshu aad ayay u qurux badan tahay laakiin adiga ayaa ka qurux badan waa haddii aad u samaysid sida aad rabtid haddaa u samaysid laakiin ha u samaynin sida ay dadka rabaan waa mugdi iyo nolosha oo kuu xumaata abbaayo naftaada ku kalsoonaa gabar wanaagsan ayaa tahay waad qurux badan tihiin aniga ayaa idin og laakiin waqtiga iyo waayaha ayaa inka hiliyey waxaan rabbi ka baryayaa inuu waqtigu idin wanaajiyo si aad quruxdiina iyo waayihiina u wanaajisaan waan idinkaga mahad celinayaa daawashadiina